من lagu tuhmeeyay in uu ka mid yahay sirdoonka dowladda Iran ayaa lagu xiray jasiiradda Qubrus yani jasiiradda Cyprus booliiskeeda ayaa ninkan xireen waxayna ku eedeeyeen ninkan inuu xoog ka aruurinayay saldhigyada Ingiriiska uu ku leeyahay isla jasiiraddan yani Ingiriisku wuxuu ku leeyahay ilaa 3 saldhigood gudaha jasiiraddan walow ay dhawaan dowladda Iran ay digniino ka soo saartay saldhigyada dalkaas Ingiriiska uu ku leeyahay isla jasiiraddan waxayna dowladda Iran ay ka digtay in saldhigyadan uu Ingiriiska ku leeyahay jasiiraddan ay adeegsadaan diyaaradaha Mareykanka yani diyaaradaha Mareykanka intooda badan waxa laga soo barakiciyay saldhigyada ay ku leeyahay gobolka Bariga Dhexe maadaama dowladda Iran inta badan ay beegsatay saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay gobolka Bariga Dhexe dowladda Mareykanka ayaa diyaaradaha dagaal waxay u dhaqaajisay dhanka saldhigyadan dowladda Ingiriiska ay ku leedahay jasiiraddan Qubrus si ay u adeegsadaan inay u fuliyaan howlgallada ka dhanka ah dowladda Iran dowladda Iran digniino aad u fara badan ay arrinkan ka soo saartay Iran caadi ahaan waxa la og yahay in ay leedahay sirdoon aad u fara badan kuwaas oo wata dhalashooyin kala duwan hadda ninkan ugu dambeeyay ee la qabtay wuxuu wataa dhalashada dalka Ingiriiska iyo waliba dhalashada dalka Azerbaijan waxa la filayaa in ninkan asal ahaan uu ka soo jeedo dalka Azerbaijan wixii macluumaad arrintan ka soo kordhay muuqaalada dambe ayaa kula wadaagi doona muuqaalka la gariir beedka soo follow gareey si aad u heshaan xog xiiso badan dunida ku saabsan aad iyo aad ay u mahadsantihiin